kulamo ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha Turkiga iyo Mareykanka ayaa sabab u noqotay in xaalad amni darro oo Muqdisho ka jirta ay hadda yaraato. maalmo ay magaalada Muqdisho ku dagaalamayeen ciidamada taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka iyo si lamid ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn waxaa suurtagashay in ciidamadaasi la kala qaado iyadoo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre maalinkii shalay ahaa lagu guuleystay in dib loogu celiyo gurigiisii iyadoo wada hadal uu dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya mudanayaal ka socda iyo si lamid ah dhinaca Xasan Cali Kheyre. habeenkii xalay ahaa ayay ahayd markii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya loo jiheeyay aaga Muqdisho uu ka degan yahay madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee xaafadda Miranaayo hayeeshee waan dhaqanka iyo siyaasiyiin kaleba ay galeen ayaa ugu dambeyn waxaa iyaduna kusoo biiray dowladaha caalamka kuwaasi oo lagu guuleystay in labada dhinac la isu soo dhaweeyo. si gaar ah Mareykanka iyo Turkiga ayaa sheegay in laga wada hadli doono muddo kororsiga dowladdu ay dhawaan sheegatay ahaa in 2027 ay muddo xileedka dowladdu ku egyahay. madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa hadda ku laaban doona xaafadii uu ka deganaa gudaha magaalada Muqdisho. ilo xogaala ayaa inoo xaqiijiyay in aanay jirin wax hub ka dhigisa sidoo kalena ilaalada aan laga reebi doonin madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed hayeeshee madaxweynaha ayaa isaga oo wixii oo idil wada ku laaban doona xayndaabka uu ka deganaa markii hore gudaha magaalada Muqdisho. mas'uuliyiinta mucaaradka oo sidoo kale habeenkii xalay hadlay waxa ay sheegeen in muqadas tahay in dowladdu ay dhexda soo dhigto talada dalka waxaana habeenkii xalay ahaa hadlay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo isagu dhawaan lagu weeraray gudaha magaalada Muqdisho. xaalka Muqdisho ayaa hadda ku soo laabtay sidii caadiga ahayd waxaana gabi ahaanba la kala qaaday ciidamadii ilaalada dhufeysida isugu jiray saacadihii ugu dambeeyay. waxaan idiin soo tabin doonaa saaxiibayaal dhaqdhaqaaqyada kale ee siyaasadeed ee magaalada Muqdisho ka soo kordha iyo wax kasta oo ku soo zaayda kulanka ay garwadeenka ka yihiin saaxiibada caalamka ee dhawaan la qorsheynayo inuu dhexmaro dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka. halkani waa Somali Stream waxaan si toos ah kugu soo gudbinaynaa dhammaan dhacdooyinkaasi.